jaaliyadda Soomaalida ee ku nool gudaha dalka Netherlands ayaa ka mid noqotay jaaliyadaha ama qoomiyadaha kala gedisan ee ku nool gudaha wadankaas ee farakutiriska ee ku guuleystay abaalmarinta ay bixiso boqortooyada dalka Netherlands. Sanadkan waxaa ku guuleystay gudoomiyaha jaaliyadda Cali Cabdiwaare oo ku guuleystay abaalmarintaas kadib 20 sano oo uu ka shaqeynayay arrimaha bulshada. waxay noo suurta gashay qadka telefoonka inaynu ku weydiino guud ahaan abaalmarinta iyo waliba taariikhdeeda iyo xilliga ay bilaabatay wuxuuna ku jawaabay. walaal wariye maxamed saciid as-saxaaf aad iyo aadan ku salaamay adiga howlwadanada iyo madaxda telefishinka Universal. runtii abaalmarintan waxay ka soo bilaabatay markii boqortooyada wadanka Holland la aasaasay waxayna jirtaa muddo dheer ama in ka badan 200 sano ayay soo socotaa. waan gartay marka si guud loo fiiriyo jaaliyadda Soomaalidu waxay ka mid tahay jaaliyadaha Soomaalida ugu waaweyn wadanka Netherlands ama wadanka Netherlands wuxuu ka mid yahay wadamada qaaradda tan Yurub ee Soomaalidu ay ku badan yihiin. qaab sidee ayaa loo soo xulaa marka dadka la siiyo abaalmarinada nuucan oo kala ay bixiso boqortooyada wadanka Netherlands? walaal marka hore abaalmarinta noocan waxa la siiyaa dadka muddo 20 sano in ka badan si hagar la'aan ugu soo shaqeeyay bulshada. soo xulitaankeeduna waxay martaa process iyadoo marka hore ay soo jeedinayaan dad garanaya qofka in uu si hagar la'aan ah bulshada u shaqeeyay muddo dheer. soo jeedinta kadibna waxa loo gudbiyaa duqa magaalada uu qofku degan yahay. duqa magaaladu markii uu arintaas u arko positive wuxuu sii gudbiyaa wakiilka boqortooyada ee gobolka magaaladu ay ka tirsan tahay. kadibna waxa loo sii gudbiyaa guddi kale oo iyaguna boqortooyada u qaabilsan arrimaha abaalmarinada. inta kadib waxa loo sii gudbiyaa wasiirka ee qusayso ugu dambeynta boqorka ayaa soo saxiixa waxay ku soo laabataa duqa magaalada isaga ayaana markaa guddoonsiiyay qofkii loo gartay. sidaas ayay u dhacdaa. waan gartay marka si guud loo fiiriyo waxaynu ognahay in la qaban jiray xaflado ballaaran sanad waliba oo lagu guddoonsiinayo abaalmarinada dadka loo gartay. laakiin sanadkan taasi ay suurta gelin sabab la xiriira cudurka COVID-19 oo saameyn ballaaran ku yeeshay wadamada kala gedisan ee caalamka oo wadanka Netherlands uu ka mid yahay oo dadka aysan isku imaan karin. marka qaab sidee ayaa lagu guddoonsiiyay waynu arki karnaa muuqaalada sida daawadayaasha arkayaan in dadku ay koobnaayeen laakiin qaab sidee ah ayaa lagu la soo xiriiray laguna guddoonsiiyay. markii ugu horeysay in 24 bishii Abriil ayaa aniga oo gurigeyga ku sugan waxaad maalin Jimcaha waxay soo wacay duqa magaalada aan deganahay Hofdorp waxayna ii sheegtay in la ii gartay in la isiyo biladaas sanadlaha ah oo dadka muddo dheer hawshaas qabanayay process dheer oo baaritaan la soo marsiin la guddoonsiyo. laakiin waqtiga corona darteed ayna suurtagal ahayn xafladii weyneed ee la qaban jiray sida darteedna in 3 bishii July oo Jimcadii dhaweyd ayay duqa magaaladu waxay igu timid meel aan ka shaqeeyo. sidaas darteed waxa la sameeyay xaflad kooban halkaas ayayna igu guddoonsiisay. waayahay marka dhinaca kale laga fiiriyo in badan oo kamid ah qoomiyadaha kala gedisan ee dalkaas ama Soomaalidu ay kamid tahay marka la eego waxa tahay shakhsi muddo 20 sano ka soo shaqeynaya howlaha kala gedisan ee la xiriira arrimaha bulshada. waa sidee xiriirka Soomaalida ku nool dalka Netherlands kala dhaxeeya hay'adaha dawladda iyo waliba qoomiyadaha kale ee kula nool gudaha wadanka Netherlands? walaal maxamed mahadsanid. runtii Soomaalida wadankan joogto waa Soomaali badan oo lagu qiyaasay 40,000 waxayna degan yihiin dhammaan magaalooyinka wadanka Holland ay ka kooban tahay. waxay xiriir wanaagsan la leeyihiin dadka ay la nool yihiin haddii ay noqon lahayd dadka asalkoodii Dutch-ka yahay iyo dadka kale ee magangaliyada u yimid ama immigrant-ga intaba xiriir wanaagsan ay la leeyihiin. sidoo kale annaguna waxaan ku dadaalnaa haddii ay tahay dalada guud iyo haddii ay ururada localka oo dalada ka tirsanba in dadka Soomaalida iyo hay'adaha dawladda xiriirkooda la wanaajiyo si ay wada shaqeyn fiican u dhexmarto. arintaasuna marba marka ka dambeeyay aad ayay u sii hagaagaysaa sanadii u dambeeyay. waayahay waxa xusid mudan in xiriirkaagu uusan ku ekeyn kaliya jaaliyadda Soomaalida ee wadanka Netherlands waxa sidoo kale toos u la leedahay xiriir gudihii dalka la xusi karo in waliba walaalatiin madaxweynaha maamul dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare. si kale hadii loo eego waxaan baliyaa markaa ay kaaga timid gudihii dalka iyo waliba isaga. walaal waa runta madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdiwaare waa nin awaalanahay uga weyn asiga laftigiisuna runtii muddo dheer ayuu wuxuu ka soo shaqeynay arrimaha bini'aadanimada. runtii waa ila soo xiriiray waana ii soo hambaliyay waana igu dhiirigeliyay in aan hawshaas aan mujtamaca u wado sii wado. isagana sidoo kale ayaan kala hadlay oo kula dardaarmay isaguna inuu ka shaqeeyo danta dalka iyo dadka uu dadkiisa iyo dalkiisa si fiican ugu shaqeeyo wixii danta guud. marka la eego xagga mustaqbalkaaga muddo 20 sano waa muddo dheer aan run ahaantii dareemi karno. marka la fiiriyo mustaqbalka maxaa ku qorshaysan oo jeceshaa shakhsiyan inaad adigu aad tiraadid waa tilaabada ii xigta ee aad damacsan tahay gaar ahaan dhanka hawlaha la xiriira arrimaha bulshada?
runtii wariye asxaaf sida aad ogtahay mustaqbalka in la saadaaliyo aad ayay u adag tahay aniguba runtii isma aan lahayn wadankaadii ayaad intaad qaxooti aad kaga soo tagtay muddo dheer ka hor ayaad halkan timaado aad ku noolaato ayaa waqtigu saan u dheeraan doonaa marka runtii horta mustaqbalka lama garan karo laakiin waxa muhiim ah qofku inta uu nool yahay inuu sameeyo wax dunida iyo markii qofku uu dhintaba macnaha wanaag keeni kara balse waxaan jecelahay inaan mar walba aan runtii aan xoojiyo howlaha u shaqaynta bulshada laakiin inaan xooga sii saaro hadda wixii ka dambeeya runtii dadka baahiyada gaarka ah qaba dadkaas ayaan jecelahay inaan si gaar ah runtii aan howlahooda uga shaqeeyo haddii ilaahay yiraa ugu garab galo iyo wixii guud oo dadka Soomaalida loo qaban karo iyo dalkiiba waayahay ugu dambeyntii waxaan filaynaa muddo 20 sano ay kadsakow in ay jiraan dad aad iyo aad u fara badan oo jaaliyada kamid ah ama qaraabo iyo ehel intaba ah oo fariimo iyo dhiirigelin iyo hambalyo intaba ku soo diray adoo ka faa'iideysanaya fursadan yaad u mahad celin lahayd walaal waxaan jecelahay inaan marka hore si guud ugu mahad celiyo jaaliyada Soomaalida Amsterdam asxaabta iyo ehelka intaba oo dadka qaarkoodna ay toos ii soo waceen dadka qaarkoodna ay social media ugu soo hambalyeeyeen waxa kale oo jecelahay inaan si gaar ugu mahad celiyo xaaskayga aan jecelahay Dacdo Cabdullaahi Khaasim runtii oo muddo dheer igu garab taagneed iguna dhiirigelisay inaan runtii arrimaha ka shaqaynta mujtamaca aan maaragtay aan si wanaagsan u qabto waayo arrimaha noocaan waxay u baahan yihiin runtii dulqaad fara badan oo maaragtay xataa aad dareemi karto in waqtiyo fara badan oo gurigaada lagaaga baahnaa aad mujtamaca u shaqaynayso marka iyada ayaan jecelahay inaan si gaar ugu mahad celiyo oo runtii guushaan oo aan isleeyahay Soomaalidii u soo hoyatay iyaduna qayb weyn ku leh aad u mahadsan yahay kaasi waxa gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee wadanka Netherlands Ali Cabdi Waare oo qadka telefoonka ugu waramayay isla markaana ku guuleystay abaalmarinta ama biladda ay bixiso boqortooyada wadanka Netherlands kadib muddo 20 sano oo ka shaqeynaya arrimaha bulshada aanu leenahay isaga iyo qoyskiisaba gudaha bahda iyo telefishinka Universal ba waxaanu leenahay hambalyo